kaalinta sagaalaad waxa ku jira Petronas Tower waa laba dhismo oo mataana ah oo ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee wadanka Malaysia waxay ka kooban yihiin 8 dabaq midkiiba dhererkoodu wuxuu gaarayaa 452 mitir ama 1483 feet inkastoo ay yihiin dhismaha sagaalaad ee adduunka ugu dheer haddana Petronas Tower waa dhismaha mataanaha ee adduunka ugu dheer ilaa iyo xilligan walow kuwa badan la dhisay dhismahan waxa iska leh shirkadda magaceeda loo soo gaabiyay KLCC wuxuuna ahaa dhismaha adduunka ugu dheer sanadkii 1998 ilaa laga soo gaadhay sanadii 2004 waxa ku baxay dhismihiisa qarash lacageed oo gaaraya 1.6 bilyan oo dollar kaalinta sideedaad waxa ku jira International Commercial Center dhismahan waxa uu ku yaalaa magaalada Hong Kong waxa ka kooban yahay 118 dabaq dhererkiisu waxa uu dhan yahay 484 mitir ama 1588 feet waxa la dhameystiray dhismihiisa sanadkii 2010 dhismahana waxa qayb ka ah ganacsiga ku yaala hotelka caanka ah ee The Ritz-Carlton Hong Kong kaas oo haysta dabaqa 102 ilaa kan 118 hotelka oo ah koow ugu caalamsan dunida waxa qaybtiisa professional suites loo yaqaan oo ah qaybta ugu qaalisan halkii habeen lagu jiibsado adduun lacageed oo gaadhaya 12,900 dollarka Mareykanka dhismaha International Commercial Center waxa kale oo xarumo ku leh bangiyo caalami ah oo ay ka mid yihiin Morgan Stanley, Deutsche Bank iyo Credit Suisse kaalinta toddobaad waxa soo galay liiska la sareynta tobanka dhisme ee dunida ugu dheer Shanghai World Financial Center dhismahan waxa uu ku yaalaa degmada Brindon magaalada Shanghai ee wadanka Shiinaha waxa uu ka kooban yahay 101 dabaq dhererkiisuna wuxuu gaarayaa 492 mitir ama 1614 feet dhismahan waxa uu isugu jiraa qaybo kala duwan oo ka kooban bangiyo xafiisyo hoolal shirar dukaamo waaweyn iyo hoteelo 170 qol ka kooban oo ku fadhiya dabaqa 79 ilaa kan 92 kaalinta lixaad waxa ku jira Taiwan 101 waa dhismaha lixaad ee adduunka ugu dheer waxa uu ku yaalaa magaalada Taiwan ee jasiiradda Taiwan waxaana uu ka kooban yahay 101 dabaq waana sababta uu qaatay magaca Taiwan 101 dhismaha dhererkiisu waxa uu gaarayaa 509 mitir ama 1670 feet iyadoo la dhameystiray dhismihiisa sanadkii 2004 kahor intii aan la dhisin dhismaha Burj Khalifa ee magaalada Dubai waxa uu dhismaha Taiwan 101 u ahaa kan dunida ugu dheer waxaana iska leh shirkadda Taiwan Financial Center Corporation CTV Financial Center dhismahan waxa uu ku yaalaa magaalada Guangzhou ee dalka Shiinaha kaalinta shanaad waxa uu ka soo ceerisaday liiska kala sareynta dhismayaasha ugu dheer dunida waxa lagu qiyaasay joogiisa dhismaha 530 mitir ama 1740 feet One World Trade Center dhismaha marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaan 1WTC waxa uu ku yaalaa magaalada New York ee dalka Mareykanka joogiisa ayaa 541 mitir ama 1776 feet isagoo daris la ah xeebta magaalada ganacsiyeedka New York dhismaha ayaa la dhameystiray sanadkii 2001 kaalinta saddexaad waxa ku jira Mecca Royal Clock Tower dhismaha Abraj Al Bayt ama Mecca Royal Clock Tower waa dhismaha saddexaad ee dunida ugu dheer waxa uu ku yaalaa magaalada Mareykan ee Mecca Al Mukarrama ee wadanka Sacuudiga waxaana dusha sare ka eegaya xaramka ama kabcada
dhismahan waxa uu ka kooban yahay 120 dabaq isagoo dhererkiisu leeyahay 601 mitir ama 1971 feet waxaana la dhameystiray sanadkii 2012 dhismaha Maka Kuluk Royal Tower wuxuu kaloo leeyahay xagga sare ka saaran saacada dunida ugu weyn isagoo dhismahan sidoo kale uu leeyahay magaca saacada dunida ugu weyn dhismahan wuxuu qayb ka yahay mashruuca loogu magac daray King Abdulaziz Endowment Project ama mashruuca sadaqada boqor Cabdulaziz waana hanti dawladda iyo dadka Sacuudigu leeyihiin kaalinta labaad waxa ku jira Shanghai Tower waxa uu ku yaalaa dalka China dhererkiisuna waa 632 mitir ama 2073 feet waxa la dhameystiray dhismihiisa sanadkii 2015 kasoo marka laga yimaado inuu kaalinta labaad ka galay dhismayaasha ugu dhaadheer dunida waxa uu tan koobaad ka galay kan ugu dheer gudaha dalkiisa China dhismaha kaalinta koobaad kaga jira dhismayaasha ugu dheer dunida waa Burj Khalifa dhismahan waxa uu ku yaalaa magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxa uu socday dhismihiisa muddo 6 sano ah iyadoo la dhameystiray sanadkii 2010 isagoo ka kooban 828 mitir ama 2717 feet dhismahan waxa uu ka kooban yahay 168 dabaq waxa ku baxay dhismihiisa 1.5 bilyan oo dollar waana aalada ugu dheer ee bini aadam sameeyay dhismahan oo ay maamusha hay'adda dawladdu u xil saartay waxa la iibiyay 40% qaybaha uu ka kooban yahay iyadoo qaybaha kalena la kireeyay